waxaan u nimid waxay ahayd arrinta nabadgelyada iyo in wax laga qabto, laakiin sheega dhabtaan idiin sheegaya. Soomaalida maamaha baa jirta ay tiraahdo cidna uma maqna ceelo uma qodno. Haddii nabad Soomaaliya laga rabana islaam baa laga sheegay ninka boodadaala gabadheeda kama dhali waayeyna weliba aan ogahay waxa maanta ay u baahan tahay wax aada u yar u yahay. lagama waayin Soomaali in la dhiso ciidankeedii la habeeyo, xooggeedii la taajiyo, la yidhaahdo idinku kaale isku tashada wax qabsada, ciidanka isku dhaf laga dhigo, ciidan beeleedyada laga saaro, magaca qabiilada ay ka baxaan. askariga Soomaaliyeed ee xoogga dalka waa la yaqaanay, sumaduu lahaa iyo astaantuu lahaa iyo على الأسف الشديد waxaan maraynaa in lanoo soo diro dawlado waagaan dawladda ahayn aan aada loogu soo dhawaan jirin. waan u mahad celinayaa dawladaha AMISOM ee wiilashooda u soo diray ee maanta naftooda ku waayay inay Soomaaliya xasiliyaan, laakiin intee in leeg bay nala joogi karayaan, intee in leeg bay sii joogi karayaan, maxay ka qaban karaan tuulada iyo xaafadda iyo baadiyaha waddanka gudihiisa. waxaa in lanagu taageero oo lanoo dhiso oo ciidan Soomaaliyeed oo isagu xasilada gacanta nabadgelyadana waddanka kusoo celiyana sameeyo. taa ballanqaadiyaa jayna noqonin kuwii hore oo kale. waxaan rajaynayaa in wax badan iska bedeli doonaan, laakiin shayga asalkii wuxuu yahay annaga Soomaalidii inaan isku tashano, annagu ciidankayagii dhisano, cadowga nala dagaalamaya aan isku meel uga soo jeedsanayo inay tahay xalka keliya wax lagu gaari karayo. sidii walaalkay xildhibaankii koonfur galbeed uu ka hadlayay, maanta haddii hal obreshino isku xidhan intanada laba goboladaasoo hadda ay ugu madax badan yihiin la qaado, waxaas leeyahay wax badan baan ka gaari karnaa. laakiin fariinta idinkuna waxaa tihiin community-ga hadda dawladaha matalo oo annaga joogo, dawladihii jinsiyada haystaan xataa waad ka doodi kartaan. waxaa ila quban dawladaha la nooshiin inaad si dhegan idinkuna ogala hadashaan oo tiraa war ciidan Soomaaliyeed hala dhiso, oo dhaqaalaha fara badan ee waqtiga dheer ku baxaya AMISOM isagoo kooban ha lagu bixiyo ciidanka Soomaaliyeed ha lagu dhiso, oo ra'yigaa dawladihii la gaarsiisan. shirkaa waxaan isleeyahay waxbaa ka qabsooni doonaa haddii la yidhaah. waxaa kasoo anigu mar walba waxaan taagnahay aan isku tashano. dawladda UK waxaan ku iri Sierra Leone cidiidin kuma iman, idinkaa madaxgal u ahaa. Maraykanku Liberia isagaa kurgal u ahaa. waddan walba isagaa meel buu qastayay, laakiin annaga ciddii loo qasti lahayd daana welihay. intaa haddaan kasoo gudbo Jubbaland, Soomaaliya ay dambaysay, waxaan rabaa inaan ku faano hal aan kaga duwanahay dowlad goboleedyada. Jubbaland